daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ka sameeyay dekada weyn ee magaalada Muqdisho isla markaana aan uga hadlano horumarka ay sameysay dekada caalamiga ee magaalada Muqdisho. dal waliba waxa uu leeyahay goobo lixaad oo ah dhaqaalihiisa oo uu ku faano. Soomaaliya ayaa qayb ka ah dalalkaasi oo Ilaahay ku manaystay dhulkeeda kheyraadyo badan. Marka aan ka eegno dhanka dekadaha waxa ay leedahay dhowr dekadood oo halbowlo u ah ganacsiga dalka oo ay ka mid tahay dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo xudun u ah dekadahaasi isla markaana gaartay horumar aad u ballaaran waxayna ka mid tahay ilaha uu dakhliga ugu badan ka soo galo dowladda Soomaaliya. sanadka markuu ahaa 1975 shirkad laga leeyahay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Imbergilio ayaa dhameystirtay dhismaha dekada Muqdisho iyadoo xilligaasi wixii ka dambeeyay caalamku uu aqoonsaday dekad shaqeynaysa oo kamid ah dekadaha caalamka. waxa dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2014 howlaha dekada magaalada Muqdisho la wareegay shirkad ka shaqeysa horumarinta dekadaha oo laga leeyahay dalka Turkiga laguna magacaabo Albayrak taasoo xilligaasi ballan qaaday dhismaha ballaarinta dekada Muqdisho iyo horumarkeeda. وإلهي مهدس تدال دير دراسة دير كدب الباب بدن أيان وقرعني وحان هلني كمبنياش عالم ككمدة إنك ساعده حبك تكديني وقاري لهيد ستاندر عالمية. وانا لو وضع سعطان هاي مداد وشنب الله تدوكو سيمان انت كدي كمبني الباير الله رحاي وكهول قرين كمبني قاسمو وحبضن يوفذي آمنات ده لقى آمن سين دكدينا أما بدينا إن أنا لوسو ديرن كنا نا وفضين سياسة عالمية إن جناح سجينا وسوقي عصب أو يوروب له أو إيشيا له أو أمريكا لنا إن أنا قارضه دان أنا أبندي كرنو بدي عدينا جناح سعصوب سكرنو dadkeen loo faarin kara si dadkii ugu dhiiradaan inay baari iyo xoolahi iyo wixii anaga aan u lahayn resource ahaan inay ka faa'iideystaan. dekada ayaa waxa ka socda howlaheedii caadiga ahaa ee raridda iyo dejinta ee dekad lagu yaqiinay iyadoo marsada xamar markiiba ay ku soo xiran karaan ilaa iyo 6 markab oo ganacsi. dhanka dhoofka waxa marsada laga dhoofiyaa waxyaabo ay ka mid yihiin liinta ama qaarka muuska xoolaha nool iyo waxyaabo kale kuwaas oo dhamaantood baa dhulka Soomaalida laga helo iyadoo ganacsiga banaanka ka yimaadana ay u badan yihiin gawaarida kuraasta raashinka dharka shamiindada iyo kuwa kale oo badan. badeecada wadankeena gudihii zaraacada ka soo baxdo hadii aan lahayd beeraha waxa ka soo baxo hadii aan lahayd xoolaha waxooda hilibka oo kalluunka badeecadaha iskala gudsan ee dibadda aad looga baahan yahay inaan u faasad gareyno u fududeyno in ayaguna dib loo dhoofiyo oo dekadu haday qalab yeelato waxa fududaanaysa in dib dhoofinta ay timaado saas daraadeedna dhaqaaleeno dhan kale oo asagana uga kabco. horumarka ay dekadu gaadhay waxa ka mid ah in la bedelay qaabkii hore ay ku shaqeyn jirtay ee ahaa in maraakiibta ama doonyaha sida ganacsiga ay ahaayeen kuwa si caadi ah loo soo raro mararka qaarna ay ku qoyi jireen biyaha halka haatan la gaaray in laga dhigo hab konteynaro oo lagu keeno waxyaabaha ganacsi ee ka soo degaya marsada xamar. waxa shaqeeya wiisha suura galiyay in durba la dejiyo konteenarada ay ku jiraan alaabaha ganacsi ee lagu soo raray taasoo suura galisay in markabka ama doonta ay dhaqsi ku laabtaan halka kolkii hore ay muddo joogi jireen taasoo caqabad ku ahayd in maraakiib kale soo xidhaan inta la dejinayo. After that second crane arrives, our container vessel operations will be
speed it up a little bit more. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in dhammaan kaargowga la keeno dekedda uu noqdo mid konteenaraysan taas oo hawsha ka dhigaysa mid fudud ilaa iyo hadda waxaan dekedda ku maalgelinay lacag dhan 10 milyan oo dollar tusaale aan ku siiyo muddada 4 bilood iyo barka ah qarashkana soo galiyay waxa uu gaarayay 11 milyan oo dollar 6 milyan oo ka mid ah dawladda ayaan siinaynay halka shanta kalena aan dekedda howlaheeda aan ku celinaynay. Although our income was not more than 5 million, we have already spent it more than 10 million. sharciga markabka taagan gudaha badda waa in dadka uu u raran yahay ay soo bixiyaan lacagta canshuurta inta uusan soo gelin marsada isla markaana uu wax wasaqa ku shubi karin biyaha lana bixi karin kheyraadka ku jira badda inta uu ku sugan yahay. Bu deniz Somalilerin. baddani waxaa iskale Soomaali haddii la wasaqeeyo ayaga ayay ka xumaanaysaa waxayna joojinay maraakiibtii yoolayda iyo wasaqda ku shubi jiray biyaha Soomaaliya waxaan rabnaa inaan dekedda Muqdisho ka dhigno sida dekedaha caalamka oo kale. International kurallar, uluslararası kuralları burada uygulamaya yavaş yavaş geçireceğiz. qaybta ugu muhiimsan ee ay ku shaqeyso dekedda Muqdisho waa qaybta hagida iyo jihaynta maraakiibta soo galaysa ama ka baxaysa marsada oo ay ka shaqeeyaan hagayaal isugu jira Soomaali iyo Turki kuwaas oo qabta hawsha ugu badan ee dekedda ku shaqeyso. waxaan soo maray badda inta aan ka shaqeynay bad shaqadeeda waxaan bilaabay 1980 dawladdii dhexe markay jirtay xirfado kala duwan iyo maamulo kala duwan ayaa ka dambeeyay muxuu ahaa maamulka Turkiga hadda oo Mustafa Umaraya ka yahay ayaa hadda muxuu ahaa dekedda gacanta ku hayo annaga waxaan nahay baylodadii maraakiibta soo daadahayso oo dekedda ay ku shaqeyso oo dhaqaalaheeda horumarinteeda waxqabadkeeda muhiimka lafdhabarka u ah waa pilotka dekedda Muqdisho maraakiibta waxaan ka soo diyaar muxuu ahaa waxaa amra Captain Organ markay macluumaadka soo dhameystaan oo u diyaar garoobaan in dekedda la soo geliyo annaga waxaan diyaarinaa in matoorkiisa uu diyaar noqdo in marka dekedda soo galay uu yahay mid safe ah oo aan dekedda dhibaato u keenin problem aan u keenin oo aan ku soo hubino marka ugu horeysa banaanka aan ku soo hubino asoo bad qabo oo ah seaworthiness condition aan dekedda soo gelin si nabadgelyo ah isla markaasna markuu dhamaado aan ka bixino si nabadgelyo ah marka dekedda muhiimadda ugu weyn oo loo baahan yahay in la helo dekedda inuu macluumaad waxqabad fara badan in loo sameeyo hadda qoladan Turkiga Captain Organ Captain Mustafa Umaraya ka ah way dadaaleen wiishash waaweyn keeneen maraakiib zamankan ugu dambeysay xilligii siyaad barre dawladda dhexe jirtay ayaa konteenarada imaan jireen hadda waxaa bilowday oo ku jirnaa ilaa muddo 5 bilood 6 bilood sanad ah maraakiibta konteenarada qaada oo sahasha in si dekedda ku daahin 10 maalmood 20 maalmood aysan joogin oo ay joogaan midka ugu dambeeyo oo 3 cisho u joogo. qaybtani waa qaybta ugu muhiimsan uguna adag hawsha marsada xamar waa qaybta jihaynta iyo soo xirista maraakiibta iyo doonyaha sida shixnada ganacsi ee ku soo xiranaya marsada xamar waxaana ka shaqeeya shaqaale u tababaran hawshooda. annaga waxaan nahay 5 nin oo pilots ah oo qabiiriin oo kabtanna ah aniga waxaan ahay waxa captain of long course ah pilot oo kaliya ma ihi shaqadayda maraakiibtan wadi jiray oo dekedda caalami aan tagay jiray maadaama wadankii marxaladiisa ay xun tahay oo noocan tahay wadankii aan u faa'iideyno ayaan u joognaa. waxaan raacay mid ka mid ah taagagii ay noogu deeqeen walaalaha Jabuuti ee loogu talagalay in lagu soo xidho laguna saaro maraakiibta inagoo u dhaqaaqnay markab taagnaa bartamaha badda kaasoo la soo xirayay waqtigaasi aan idinkugu soo bandhigno horumarka ka jira dekedda.
sidaa daawadeel arkaysaan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii aan ka sameynanay dekada weyn ee magaalada muqdisho iminka waxaanu ku dhex jirnaa gudaha badda waxaanu saaranahay taag ka mida taagaga inoogu deeqaan walaalaha aynu dariska nahay ee Jabuuti iminkana waxaan u soconaa in la soo xiro markab weyn oo dhex taagan badda isla markaana sida alaab ganacsi markabkaas ayaa lagu magacaabaa Seagull marsada waxaa ka shaqeeya xoogsato badan oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta iyagoo sidoo kale u shaqeeya xilli waxaa 7 subaxnimo soo gala qaar ka mid ah xoogsatada iyagoo ka baxa 6 maqribnimo halka kuwa kalena ay soo galaan 6 maqribnimo kana baxaan 7 subaxnimo walow qaar ka mid ah ay qabaan cabashooyin
We didn't want to work with union, honestly. haa dhabtii bilowgii waxa aan doonaynay in shaqaalaha dekedda aan gaarsiino ilaa iyo 10,000 oo howlaha dekedda ka shaqeeya kuwaas oo loo tababarayo ganacsiga iyo howlaha dekedda si dekeddu ay u noqoto mid caalami ah laakiin bilowgii waxaan ogaanay inay jiraan dad badan oo hoos taga ururka midowga xoogsatada waxa aan ku aqbalnay sidaas taasina waxay ahayd arrintan nala bilaabatay waxa aan doonaynaa in aan dekedda ay noqoto mid caalami ah oo heer caalami ku shaqaysan But after we take over, we understand that there are a lot of people under the payroll of union. So we accepted to work with union, continue with union. dekedda ayaa ah mid qadiimi ah oo u baahan dhismo xoog leh iyadoo dhismaha iyo ballaarinta ay ballan qaadeen shirkadda ka howlgasha ee Albeyrag xilliga habeenkii waxa shaqeeya marsada xamar walow ay jiraan waxyaabo badan oo ka dhiman shaqada habeenkii mar dhowna ay dhameystirmi doonaan waxa ku yaala dekedda Muqdisho saldhig ciidan oo qaabilsan ammaanka ka shaqeeya qaar kamid ah ciidamada Bileyska oo had iyo jeer u taagan ilaalada ammaanka waxa sidoo kale ka shaqeeya ilaalo Turki ah oo ka tirsan shirkadda Albeyrag kuwaas oo dhankooda ka suga amniga waxaan wareysanay qaar kamid ah shaqaalaha saarnaa maraakiibta iyo doonyaha ku xidhnaa marsada xamar anagoo weydiinay sida ay u arkaan imaanshaha caasimadda dalka ee Muqdisho My name is Atif Kordi I am from Syria. Captain of this vessel Seagull Key. I have working here from 7 months. This is second time for me this in Mogadishu. And maybe I go somewhere to sometime go to Barbara and Bosaso, but this is second time for me in the Mogadishu. berbera iyo boosaaso aan aad waa jiraan laakiin markii koow aan halkaan imaado waa markaan Yeah, now I think it's better because I had many story about this was her situation. It was bad before, but now for 3 or 5 years, nobody heard about anything, some piracy or some fighting or something. The situation will be it's here better from before. wuxuu yiri markii aan halkan waxaan ugu soo dhiiraday waxa weeyaan amniga markii hore uu xumaa xagga burcad badeedka iyo waxyaalahaas wax xumaa laakiin xilliyadan dambe waxaan la socdaa oo dareensanay in waxaas aysan jirin oo hadda soo wanaagsanaadeen xilligii hore hadda laga soo gudbay oo amniga ay fiican tahay Mogadishu and now currently very good, better than before that. Muqdisho haatan waa ay ka wanaagsan tahay sidii hore balse xilligii hore amnigeeda ma ahayn mid la isku soo halayn karo sidaa darteed xaaladdu iminku waa ay ka wanaagsan tahay xilliyadii hore hadda waxaa ka socda horumar dhan walba ah dekedda waxaa yimaada maraakiib sida konteenaro waxaa ka shaqo bilaabay shirkad cusub sidaa darteed wax walba waxaa sahlaya amniga markii hore hadda ayuu ka wanaagsan yahay Now situation is better than before. waata daawadii dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ah ee ka sameynay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho dekedda weyn ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxay leedahay qayb dhakhtar ah oo lagu dabiibo isla markaana wax lagu qabto dadka sida emergency-ga ama degdega ay wax ku soo gaaraan qaybtaasi waxa ka shaqeysa dhaqaatiir kala duwan markana maamulaha isbitaalka ayaanu waxaan kula kulanay qaybta isbitaalka isagoo naga warbixin doona qaababka ay u shaqeeyaan iyo waliba kiisaska ugu badan ee la kulmaan qofka aan shaqaalaha dekedda ka shaqeynaya wuxuu dhig baxay u dhiman jiray hadda laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin
labadan sano oo meesha yani ay shaqaynaysay oo ay heleen gargaarka degdega ay heleen waxaa maarata isha dadkii ayuu maarata u suurta gashay waxyaabaha dadka ugu badan kiisaska aan qabna waxaa ugu badan dhaawacyada dadkan dad shaqaalaa weeye waxay ku dhaawacmaan marsooyinka meelaha shaqada ka socdaan ay ku dhaawacmaan lambarka ugu badan dhaawacyadana waxaa weeye waa laba qayb weeye waa baabuureyda iyo dadka xoogsatada ah waxaa soo raaco kaleeto shaqaalaha kaleeto oo maarata ii sheegaan oo maarata dawliga ah intii aan u hurgelayay hawsha dekedda waxaan la kulmay maamulka dekedda Muqdisho oo ila wadaagay qorshayaasha horumarineed ee dekedda Muqdisho iyo marxaladihii ay soo martay. Dekeddu marba waxay soo joogtay meel sanadka ka dambeeyana waxaa la sameynayay horumar runtii la wada og yahay oo la taaban karo. Dekedda Muqdisho 2013 waxaa laga hirgeliyay oo ku guuleysanay in uu ka howlgalo systemka liner oo linera waaweyn oo adduunka jira ay ka howlgalaan oo ka shaqeeyaan badeecaduna ay si toos u timaado meel kasta oo adduunka laga ay badeecad diyaar ku tahay Soomaaliya laga rabo inay toos u timaado 2014 dabayaaqadeediina waxaa lagu guuleystay in dekedda Muqdisho uu ka howlgalo kambaniga Albayrak oo aad maanta ay arkaysaan in dekedda gacanta ku hayaan howlaheeda inta ugu badan sida operationkii sameynta servicekii iyo wixii dekeddu ay howlihii dekedda ay qaban jirtay ama ay qaadi jirtay dekedda waa kaabayaasha ugu weyn ee dhaqaalaha wadan uu leeyahay lagu kobciyo si caalami ah waayo badeecada dadkan ay u baahan yihiin oo dibadda laga keeno iyo badeecada dibadda looga baahan yahay oo loo qaado wax la dhoofiyo wax la soo dejiyo marka taas ay wuxuu ka abuurantaa in ay dhaqaale badan u kobciso wadanka waxay ku xiran tahay habka ay dekadaha u shaqeeyaan waa inay awalan haystaa dhamaystir qalab oo in ku noqoto dekad sidaan la socono marka taariikh yar oo gaaban muddadii gaabneed ee 3 sano ku dhawaad ee aan meesha u joogay dekadu culays fara badan ay qabtay magaca dekad way ka ahayd laakiin imkaaniyaadka ama waxyaabihii qalabkii u baahneed ee dekad ku noqon lahayd ma aysan haysan oo burburka wadanka guud ahaan ku dhacay 20 iyo dhowrkii sano ee dagaalada sokeeyay jireen ayaa ayadana dhinaceeda ka qabsadeen sidaas daraadeed ayaanu ku dadaalnay in ay soo tiigsato inay dekadaha caalamka ama kuwa dariska kuwa gobolka ay la standard noqoto weli waxba u dhiman runtii waxaa la dhihi karaa waxa u dhiman waxaa la hayaa jidkii ay ku imaan lahaayeen oo si dhow loo hayaa dekedda in la ballaariyo way u baahan tahay waa loo baahan yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha dowladdu ka shaqeysay oo laga shaqeeyo lagu guuleystay ka mid tahay oo hadda looga fadhiyo waqti dhow inay laga howlgalo waxaa ka mid ah waxyaabaha dhiman haddana meel fiican jooga qalabaynta dekedda iyadana waxa weeyaan in dekedda la qalabeeyo oo qalabka ay u baahan tahay waa waqti dhow waa la sugayaa oo waxyaabaha loo fadhiyo heshiiskana uu qayb ka ah oo taabanaya heshiisku ay ka mid tahay howlaheeda dekedda marka intaas soo dhaafo waxa weeye systemka iyo nidaamku mar walba wuxuu la mid noqonayaa oo loogu talagalay inuu la jaan qaado dekadaha caalamka daraasad dheer aan ku soo binay waxaan dareennay inay u baahan tahay in loo helo si degdega in qalab la qalabeeyo dekada si ay dhaqaalaha wadanka aada ugu sii kobciso shaqadeedana ay u yeelato nidaam iyo qaab ay u yeelato
waxaan bilownay intaan joognay inaan systemyo container site-ka ay ka mid yihiin container in badeecada lagu keeno oon furfur lagu keenin si ay uga badbaadaan badda ama inay kusoo qoyaan ama inay dhibaato kale ku gaarto sidaas daraaddeed badeecadii oo sideeda oo wanaagsan ayaa caalamka daafihiisa kala gedisan qofka ugu keensan karaa containerada aan bilownay faa'iidooyinka leh taas waay laakiin markay tahay badeecada furfurka iyo waxyaaba noocaasa suuqyo gaara lagu xirnaa laakiin maanta adduunka shantiisa qaarad meeshuu rabo ka keensan karaa oo container line ayaa ka shaqeynaya alxamdulilah taasi ayadoon structure iyo qaab lahayn qalab wax lagu dejiyana aan haysanin nidaamkaasna uu caalamkii 20 sano aad u soo kobcay u soo kordhay ayaan waxaan bilownay inaan hawshaasi aan ku dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed tusna faa'iideeda wayna bilaabatay dowladda federaalka ah gaar ahaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka Soomaaliya ayaa wada dadaal dib loogu howlgelinayo dhawaan dekedii uu dalku lahaa laguna horumarinayo dekeda udub dhaxaadka waa dekedaha Soomaaliya waxaan ka fikirayaa dekedii hore Soomaalida ay lahayd meeshii doonanba ku yaalaan in ay wasaaraddu isku daydo inay wax horumar ama ay daraasad runtii ka ogaato oo la yiraahdo maxay u baahan yihiin lagu horumarin karaa wax horumarina maxaa lagu soo kordhin karaa horumarkooda laga shaqeeyo waayo dekedahaasi iminka waqti bay runtii jireen ay dayacnaayeen la odhan karo badankoodu ay dayacnaayeen ama aanay horumar la taaban karo oo qorshaysan oo dowladeed aanay haysan marka in la yiraahdo bal mar dambe la isugu dayo in dib loo fiiriyo dekedihii runtii waxyaabahan jeclay waxaa ka mid ah dekedahaas in loo helo dad aqoon u leh ama cidan doonaba la kaashanay inaanu ka helo macluumaad waafi aanu ka helo markaan macluumaad waafi ka helo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin inaanu isku dayno wixii aan ku biiri karnaa inaan u raadino wixii taalka iyo insha Allah 22 September ee dabayaaqadii sanadkii tagay markii shirkadda Albeyrag la wareegtay howlaha marsada Xamar waxa kurar ku yimid dakhliga dhaqaalaha ay soo saari jirtay dekada Muqdisho xilligii hore dowladda dakhli yar ayaa ka soo gali jiray dekada hadda dakhligaas kor ayuu u kacay waana mid sii kordhaya dowladda waxa aan siinaa 55% dakhliga marsada ka soo xarooda oo aysan ku jirin kharashaadka ku baxa isla dekada excluding all the running costs and investment costs so government is really making much more money than before aniga ku sheegayo in xataa qaar cusub laga fikir karo dekado cusub oo xeebaha Soomaaliyeed ku yaala in laga fikir karo marka kuwii hore la hormariyo xaaladooda hal ogaado hadii qaar cusub lagu dari karo in lagu daro Muqdisho waa caasimad xadaarad fog ku leh caasimadaha qaaradda Afrika iyo waliba adduunka oo dhan halkan aad arkaysaan waa dekada weyn ee magaalada Muqdisho goordhow waxaan rajaynaynaa inay la mid noqoto dekadaha horumaray ee caalamka intaan barnaamijkan la mid ah mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo caasimad mugla iyo waliba horumar baahsan